qofka mar walba dadka yiraahdo waxaan ku sameeyay anigu xabaan ku qabtay ana magaalada ku soo galiyay midba kula ya dadka la mid buu ana qof ka dhigay kan ma adarkay buu yiraahdo dadka ana qof ka dhigay buu oo marka hore ma dameer buu amsa daayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qof يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر المخلوق فإنه داء. الحمد لله إلهي بانكو حمدنا ولا ليال أبين جمعة أو بركيسا مساجد كاس إلهي تبارك وتعالى وليه عبادة إلهي اللورد سي الله النبو كلن سيئي بمحله runtii جزاكم الله خيرا. علماء وين لا جوجتا خيارتيني أكابرتيني علماء لكن أنا كوحن وإما نكليا أما نيسو زيارنا إن أنس براروجنون. الموعظة تذكرة للعالم وتعليم للجاهل بالليل. الموعظة هذا مالي أي كدع دوانا يا نصيحه. عالمكنا waxay u noqonaysaa tadkiro oo cilmigiisa la xasuusinaya. jaahilkana waxay u noqonaysaa diin barashay u noqonaysaa oo cilmi ka maqnaabu ka faa'iideysanaya majliskaas. inakuna waxaan nahay insaan macnaheedu waa kii ilowshaha badnaa. insaan bani aadam bashar إنسان كاسي مر والبا وحو باهان يahay in la xasuusiyo oo la baraarujiyo oo quraanka dhan baa ilaahay ku sheegay inuu yahay xasuusin in huwa illa dhikrun lil alamin. nabigeena Muhammad alayhi salatu wassalam ayaa ilaahay ku sheegay inuu yahay mudhakkir xasuusiye. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. maxaa bani aadanka marka la xasuusinaya bani aadankan waxa la xasuusinaya ballankii ay horay u galeen ee ahaa inay alla keligii ay caabudayaan. wa idha khada rabbuka min bani aadama min dhuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati إنا كنا عن هذا غافلين. آدم عليه السلام مركي آبهن لأبوري أرلاد الله صودا دعيي جبل النعمان هلك عرفات أي كتالو هلك النبي آدم عليه السلام وكسوغا أيا إلهي جل وعلا ظهرك النبي آدم أيا إلهي كسوق بتي أرواح ذا أولاد ديسا مركاسا هورتيسا لغو شيريي بوري النبي عليه الصلاة والسلام مركاسا إلهي بلا نوحو كقاضي arwaaxda basharka oo dhan oo hal qof uunan ka maqnin ruuxdiisu in uu yahay Allahu Rabbul Alamin rabbiga macbuudka ee cibaadada mutaystay inuu yahay ballan Ilaahay ka qaaday.
ونقرسي إلهي فأشهدهم على أنفسهم markaasaa ilaahay ku yidhi anu rabbigii ini uumay ee ini arsaaqayay ee iska kiin lahaa miyaanan ahayn qaaluu balaa bay idhahdeen kulligood ballankaasaa bini aadamku ay soo galeen inay ilaahay jalla wacalaa keligii ay caabudayaan oo keligii ay adeecayaan oo keligii ay baryayaan oo keligii ay isku dhuldhigayaan oo keligii ay baahidooda u sheeganayaan ballankaasi bini aadamku way soo galeen laakiin arladan markay yimaadeen basharkii bini aadankii arlada ay yimaadeen qof walba mujtamacii iyo bii'addii uu ku barbaaray ayaa saamaysoo bedishay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa imaa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmo kasta oo dhasha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam fitrada islaamka ayuu ku dhalanayaa ama labadiisa waalidunbaa xagga yahuudiyadda u qaadayo yahuudi ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa nasraani ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa majuusi ka dhigaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam ilmaha yar kolba mujtamaca uu ku dhex barbaaro sida ay yihiin buu markaa ilmuhu uu noqonayaa ama qof kastoo adduunka yimiday wuxuu dhalanayaa isagoo qaba fitraddii saliimka ahayd ee ahayd fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiinu alqayim fitraddii toosneed ee ahayd inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keligii uu yahay macbuud kala baryo ee la weyneeyo inuu asaga yahay fitradda iyagoo qalbigooga ay ku jirto ayay bini aadamku adduunkan ay yimaadeen laakiin kolba mujtamaca qofka uu ku dhex barbaaro ayaa marka qofka bini aadamka saameyn iyo raad ku yeelanaya kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka bini aadankii ballankii ilaahay uu la soo galay arladan markay yimaadeen badanaa ballankii way iloobeen way halmaameen raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay isagoo bini aadanka u naxariisanaya oo mar walba addoomihiisa khayr u khayr miraya oo jecel ayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu u soo dejiyey kutub waxauna u soo diray maaragtane ergo 100 iyo intaasoo kun oo nebi oo 312 rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shareecada oo ilaahay jalla wacalaa bini aadanka uu samada uga keenay ayaa ilaahay bini aadankan u soo diray si bal bini aadankan ballankii ilaahay ay la galeen aynan u halmaamin mar walba u xasuustaan oo quraankii aayaadka ilaahay lagu gartabay culimadu yiraahdeen waa laba aayadood midna waa midan inala hadlayso waa quraankii midna waa midan maaragtaane aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa quraankan weeyaan haddaad quraanka u fiirsato 80% quraanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu quraanku ka warramayaa juz'amo oo kaliya 19 meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiga dhulka isagu abuurtay hal mar oo kaliya hadduu sheegan lahaa way ku filan tahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah azza wa jalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxaa laga dhaadhicinayaa tawxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata marka inaad adeecdaa ku dhib yaraan marka bini aadankan muhiimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa inay ilaahay aynan iloobin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid ah inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana weligaa ha xasuusan lacalahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikathiirin min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'alo ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaada aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah caza wajal allahaad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso
aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalsho cunto haddaad cunaysana ma aragtaane calooshaada ilaalsho labana weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana ha xasuusan labada uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi اثنان لا تنساهما واثنان لا تذكرهما buu ka yidhi laba weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas وإساءتهم إليك وناقة دتك أدو سميني سد ولقاها حسوسا هداد مدى أد وناقو سميني سد إلهي درتي أقو سمي هداد علمي بري سد إلهي درتي أبر هداد إحسان سميني سد إلهي درتي أقو سمي هداد شفاعات قادي سد إلهي درتي أقو شفاعات قاد هداد واحد ديميني سد إلهي درتي أقو ديمي واحد دتك أقباني سي وناقة ماركا وحريس وانا دو قبتا الله درتي dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan waliga xasuusan buu ka yiri iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ihsaanka aad u sameynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegtay inaad noqoto halis u tahay gallad sheegtana waayo وإلهي صدح واكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كرداف مايو عذاب كل الأضرنا وإليهين صدح جرب نبي قول إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيايري خابوا وخسروا منهم يا رسول الله ويهوغين وين خسارين كواسي أييه نبي الله نوشك مرقاب النبي قول المنان وكذلك قلت شيكت أبو رسولك يدي قلت شيكت qofka mar walba dadka yiraahdo waxaan ku sameeyay anigu haban ku qabtay ana magaalada ku soo galiyay sababta kula ya dadka la mid buu kula ana qof ka dhigay kan ma adarkii buu yiraahdo dadka ana qof ka dhigay buu oo marka hore madameer buu amsa daayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qof أنا سمية أنا وحكار دقي أنا ضدك كوكو دري هذا أنا جرين ما بجرتين ماي وأنا هذا حاتا مركو أوه رئيس سبع هذا مدة وحقوق بنا سيله درت وحقوق به لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إخلاصك وعجيب الله ينسي إخلاصك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس إلهي وكيلها من عمل عملا قفك عمل سمايا أدونك دوشيدا عمل كاسو سمايينا أنيق عدك يقول لريبا إلهي إيه شريك يلي عمل كيسا إيه شرك كيسا قيامها وأنوغتك أبا إلهي يلي صدح دقفة أوغوه الرئيسة والنبي قول شيء صلى الله عليه وسلم إن النار تلقوا توري دوننا وصدح لي وعالم وتاجر صخيئها هي نن مجاهدة هاي والله ملين ينو دينو دنتي صدح عمل هو وين بين الله إيمانيان كانوا مجاهد بوها كانوا وحوها عالم بوها ومضوا علم جبر يقاربوها كانوا وحوها ما ركتان السخيم مال قبين أيوه هاي حوله سوء بحنجري صدح ده عمل اللي مادن إلهي هرتي صدح ده عمل بوحة كلنا ما ركتان الشرك بكلنا لأن مركز إلهي أرنا يا هذا دمتي واد صور دمتي لكن أنا قدرت وباد صور دمنه إن لقاير هذا هبل وانين دقاليها أياد صور دمتي وانا لقويري adiguna qaarib aad ahayd quraan akhris fiican ama waacid umada wacdi ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhageystaan wacdiga markaad jeedinaysid umada wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaas oo umada wax u sheego arab fasiixi ayaa lagu yiraahdaa islahayd kana waxa la oranayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kasto khayr xoolaha waad ku bixinaysay haday masaajid tahay haday madaaris tahay haday ay taam tahay laakiin waxaad u bixinaysay waa hebel waa saxiix hal lagu yiraahdo saddexdii naas waa leeyni yiri adduunka dusheedii agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la oran doonaa xadiiska Abu Hurayra radiyallahu anhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxdo halis u gaadho ayuu xadiidka nabiga ka maqlay uu sheegi jiray lillahi wa inuu hada qofka muslimku waxa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi
ayaa lagu yidhi maninnaas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu yidhi alculamaa dad haddaad i weydiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana ee aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi famanilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azuhaad waa dadka zaahidiinta ee adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bedhbidhkayga waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaasaa lagu yidhi ma tawaaduc tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa lagu yidhi attakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u waxba aad u arkin oo agtaada qiimo aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman isufahaa dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuu alladii yaakulu diina biddunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunyo kaga doonaya wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmaayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif mu'minka qalbigiisu غل iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaadaa saliim waa kii nebigu lahaa xadiis fi sunan nin ahlaljanna inagu soo bixi doona nin saxaabada ka mid ah soo galoo soo weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen haddana maalin labaad buu nebigu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doona isla ninkii baa soo galay haddana maalin saddexaad buu nebigu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doona isla ninkii baa soo galay cabdullaahi binu camar binu caas radia allaahu canhuma ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yidhi aabbahay baan isa soo diinee in marti qaad markaasuu marti qaaday aabbihiina ismay soo diideen wuxuu rabay keliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlaljanna ha soo aragtid buu ku yidhi ha soo aragtid buu islahaa iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen innagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa naga zamankeennan dadkii adduunya u tartamayaan adduunya u kala badinayaan caliy ibn abi aalib radia allaahu canhu ayaa lagu yidhi sif lana adunyaa adduunyada caliyo bal noo sifee markaasuu ku yidhi ma asifuhaa maxaa niigu safeeyaa awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi maxaan adduunyada ka sheegaa buu yidhi awalkaygu waa canaa waa tacab waa daal bal dadka maanta adduunyada jooga eega qof walba waa daallan yahay inankii baa daallan oo aabbihii baa daallan oo faqiirkii baa daallan oo maalqabeenkii baa daallan oo madaxdii baa daallan oo shucuubtii baa daallan oo hooyaa daallan oo inantii baa daallan oo jaamicigii baa daallan oo kii maalka haystaa daallan oo kii faqiirka ahaa baa daallan kii miiga joogaa daallan kii diyaaradaha waday baa daallan awaluhaa canaa buuhi cali bnu abi aalib adduunyada haddaad ii weydiiseen awalkaygu waa daal waa tacab buuhi waa tacab waa daal maba nasanaysaanba war maa la nastaa ma nasanaysid wa aakhiruhaa fanaa maxaa ka dambeeya dhammaad ama adiga dhiman ama adduunyada kaa hor dhaqaaqay xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashayna xisaab baa ka dambaysa wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna waa cuquubo adduunyada dusheedii aakhira waa lagugu ciqaabay xaaraanteeda man istuqniya fiiha futin waman iftaqara fiiha xasan buu yidhi adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantidaa uu ku fidnoobi xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo stress iyo walaahow unbuu ku jiri ka adduunyada aanan haysana faqiirka noqdayna murug unbuu ku jira isaguna murug midna xisaabteedii baa dawakhisay midna walwalkeygii baa hayo halkeen ka helaada unbuu hayaa soo sidaa maaha adduunka iskaga meedayneen asxaabta nebigu aakhiraday u tartamayeen jannaday u kala badinayeen wa fii daalika falyatanaafasahi almutanaafisuun maadaamuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu 3 maalmoodoo isku xigta uu yidhi
nin ahlal janna inoo soo gali doona cabdullaahi binu camar wuxuu raadinayaa ninkani wuxuu ku mutaystay jannada ma sabab saddex habeen markuu martuu ahaa wax acmaal oo ziyaada ah oo inta iyakuba ay qabanayeen dhaafsan markuu ka waayey ayuu yidhi aabbahayna ismaan soo diidine saddex maalmood buu nebigu yidhi ahlal janna inagu soo bixi doona adigaana noo soo galee camalka aad ahlal jannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee wax acmaal oo dheeraad oo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa 5 waqti baa tukataa saacadaha dambana witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaata leelkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno quraan akhriskaagu ma badno markaasuu yidhi huwa maa ra'ayta buu yidhi inta aad khayrka aad igu aragtay unbaa anigu aan sameeyaa wax kale ma sameeyey buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu yidhi adiga kaa qarsoon oo aanad ogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexdaa buu qofna caloolxumo calooshaan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abi bakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed sooniya salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi qazawaadkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam qazwad kamida ayaa markuu nabigu qanaa'imtii u qaybiyay saxaabada nin ayaa yiri marka qismadan la qaybiyay lagumana cadaalad falin ilaahay dartina loogama jeedo buu yiri hadalka ayaa lagu leeyahay nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam wal fiirsada nabiga sa'atu sadrihi qalbigiisa balladkiisa eeg iyo baaciisa cabdullaahi ibn mas'uud radiyallahu anhu ayaa hadalka maqlay war maxaa tiri qismadan la qaybiyay xoolaha sidan loo qaybiyay lagumana cadaalad falin oo cadaalad laguma qaybin ilaahay wajigiisana loogama jeedo buu yiri hadalka ka warramay intuu leeyahay dambi ibn mas'uud radiyallahu anhu wallahi ma qarinay nabigaan u sheegay buu yiri markaa buu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiga wajigiisii baa bedilmay markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in lam ya'dil Allah wa rasuluhu faman ya'dilu buu nabigu yiri ilaahay rasuulku haday cadaalad iyaku sameeyni waayaan oo cadaaladu xaqooga ka iimani weydo ayaa kale cadaalad sameeyay buu rasuulku yiri ereyga markuu nabigu yiri ayuu yiri walaalkay Muuse alayhi salaam inta in ka badan baa la dhibay oo uu sabray buu rasuulku yiri يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ولكن موسى عليه السلام انت إنك بدن بيقوم جيسو أي دبيان صبري أنا قلنا وصبر يا أبو رسولك لمركز سلامة الصدر لبدا ولغا وحكوده حسوسا لبنا هاي لوبن إلهي هاي لوبن دارت آخرا هاي لوبن بوكيدي الله والدار الآخرة الله وكيكو أبو ريكو جرسيي دارت آخرنا ودارت كل جنوة النقند دون حق ذويان الله وكيكو أبو ري محكو أبو ري معرفة سؤال هاي كو أبورتي عبادة سائلة هاي كو أبورتي آخرتنا ودارت أضامها إلى هاي وكسو جيو أضامها لقو حسابي دون ويان إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا مال انت بنا آذن كالله كل السين دونو الرب قودا إلا كل مدونان ومال انت ويوم الفصل ومال انت لك لصاري دونو ويان كيف عنائك يحمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار كان لك لصاري
كي وناكسنايا كي حما بالكلا ساري يوم المصير يوم القيامة لبدا ولغا هاي لوبين بوكوري لبدا ولغا هاي لوبين الله يكو أبوره هاي لوبين مر والبا حسوسنو وقلبك إلهي كو هاي هداد مهرد هذا جوكت إلهي حسوسنو هداد أقل جوكت إلهي حسوسنو هداد مسكيت جوكت إلهي حسوسنو هداد عرك جوكت إلهي حسوسنو هداد دولك جوكت إلهي حسوسنو ولغا إلهي هاي لوبين لأن إلهي أذى أباهن قلبك إنه إلهي كبحن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نيدو كدو عيسنا يمحيهد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلوبتنا وحي كجر تابو النبي قولي إلهي تبارك وتعالى أصابع دي سلبا أسبوع كمدة كجر تابو النبي قولي يقلبها كيف يشاء صدو دونا إلهي يقلبها صدو دونا يقلب marka nabigeena ku ducaysanayo laha ilaaha qulubta bini aadanka gagadinayo qalbigayga ilaahu daacadaada ku sug ilaahu qalbiga maarifada ii fadhiisi fala nansa ilaahay nama iloobin isagu isaan ku iloobayna kuma iloobayo khalaqaka fasawaka uku abure uku jirsiyay asbaqa alayka ni'amahu zahiratan wa batinah إلهي نعمتي سواك كهوبيي تيدا موقتي تانا موقنبا أمني باكو إلهي كسي أمنك يا أمنك نسيه إلهي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها قفك واقو أقبر يستيبو نبي قولي سقو نبض قبع يجركي سيئو بض قبع قوت اليوم كنا مالتها وحعون ينا هايستبو نبي يدي نعمة دي أدوية تعالى نوال لسيب رسولك يدي واجب أكوبر يي دتك أجي هذيك والنبض قبا أمن جوا النعمة إلهي نسي إلهي كم هذية أمن جهلا إلى اليوم نعمة إلهي وبحيا نعمة أقوين وإصلان ماذا نعمة الله بعدنا علماء وحيدة وعافماتك نعمة صدق هذا هذه الله شيئا ونبت قليدا رب اجعل هذا البلد آمنا أمنه وقالوا ويان إبراهيم بكدو عايزت أمنك بشو مركي بلاتو نبي كدو عايزتو يري اللهم هل باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم هل علينا باليمن والإيمان بشي بلا نيسا وحاسونا إن تكدو عايزتد بشاسين بركة كولا دلتا بركة إينا بدقليو إن أمن لدلتو إن أرزاقات بركة لكولا دلتو إن إسلام ماذا إلهي كوسوغو إن بدقمنا إلهي كوسيو نبي الله إبراهيم عليه السلام وحو كدو عيسنا لبا شيبو إنما دي سو كدو عيي ماركو بيتك إلهي وكدو عيني لبا دا محاي هيد إن إلهي الدرية دي سشركك إلهي وكا إلهي أمن إلهي أوصيه وتوحيدك وعسر عيي إن بدقل يدي وهي هدان نبد لحيسن سيدان مساجد الله عمر مايو سيدان الله سو شغتك مايو marka amniga ilaahay baa haya caafimaadka ilaahay baa haya arsaaqada ilaahay baa haya waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyay waxa ka maqan ilaahay un baa ku haya fanasal min allah ilaahay wax walba han weydiisano ilaahay waa hayyi xishood badane adoonka adoo gacmaha kor u qaado iraada ilaahay waxa isii inuu faramadni ilaahay ku soo cesho waa ka xishooda abu nabiga kaleey salaatu wasalaam فلا ننسى تبدل ما أنت إلهي وإلو بين قار زمن كي راعين زمنك قار مادة دي باقادتي قار شهوات كي باقاتي
يا كسوري دي مركا يا ونستحين يا ودمقن إلهي مرول بحسوسنو ذات كان إلهي حسوسي آخرة حسوسنو ذات كآخرة وقير مرول با لبدا قلبي إن هدي كويناتو معصية ويران وطاعة يا بدن أفضل مرول بإلهي حسوسين يحي وآخرة حسوسين هاي بعلماء يرادين صدح صفة إلهي سيا تعجيل التوبة وفق مرول بإلهي حسوسا إنه دمان ينا حسوسا بل يري وفق عش التوبة دو أودك دقا توبة دي بودك ما يودك دقي صفة الله بعد إلهي أوصية متقانا وفقاس قناعة في القلب أرزاق دي أدويدنا أنت إلهي أوقدري أيو وفقاس الرالي كن نقضى تصدحاتنا بقى اللي يريه النشاط في العبادة طاعة إلهي بقفك سوجة جبنانا يا إن الصلاة كود بيراتو وصونك كود بيراتو وقرآن أخرسك كود بيراتو وفردك مسكتك كو معاناتو ودين تبرشده كود بيراتو وعمل فلك دين تكو معاناتو وحكينا يا وهدي قلبي يا مرول بإلهي أتكو هيسد آخرة لا يكو هرتالو لبدا سي هدي قلبي يكو يراتنا لبا صدح عقوبة قف كود على صدح عقوبة كوباد waxa weeyaan bal la yiri toobadu ayuu dib u dhigtaa hore uu toobad keenay maayo illa waa dhimanaysa ismale wuxuu isleeyahay waa noolaanaysa buu isleeyahay qanaaca ma yeelanayo qalbigiisu qanaaca ma yeelanayo waxa adduunka maal yaalo oo dhan sidoo ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn man helayo halka كقلبيس آخرته كوين تهي عبادتي طاعته ودب يرانا سنة كان وحى كل عيسى الكسل في العبادة عبادتي إلهي ما كنا قناس عليس مقداد صحابي قال أورنجر رضي الله عنه أيها هبينك مركو جيب سنة أيو وعلي أوقل قلنجر أساس أوقل قلنجر سيدا دريقة مركب بيها الله صاروا يدبكو كل زيادة بيهو كرسمان سيدا بيهو أسكو لبا قديان أيها هبينك أوقل قلنجر أساس مركب حاسكين سكو أورنجر تي محال لقل قلان إسامات سيحاتي دا مركب أوكو أورنجر عبسدا النار تا أنكقبو أيها هبينك وردد إيقا قاضي بأورنجرين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكوي الصحابة كوي رشبتا نبي الله عرضي باكو بدت بريهن محاجرة مرقابو نبي يقول شيبتني هود وأخواتها سورة هود يا ولا لهد بعرضي يقصو صاري برسولك يقول سورة هود وأخواتها عما يتساءلون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سورة ذها قيامها كور رمايا أيها النبي محمد عرضة كسو صاري سورة هود مركي الله بارينا آيات النبي محمد عرضة كسو صارتي وحي علماء كل شيئين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga hawaa عن istiqaamada markay culimadu ka hadleen waxay yiraahdeen wallaba buurood oo afiiqan dushooda u la dhigay oo la yiri qof bini aadana halka dulmar sidoo u soconaya sidoo socon degdeg u socon maayo cabsi buu ku maraya halka cabsi فاستقم كما أمرت سيدي الله أمر كتوصنو حق إلهي إلالي حقوق ذا بني آدم كقوليهين إلالي مالك قيامة وحاتم هذا هذا بني آدم وحبك كقول شيء آخرها هدات ماذا هذا وحلقوها يستو فاكين النبي يقول لها أتدرون من المفلس قفك عيدا مياتقانان صحابة وحيد هذا عيد وحنون قانا أنكو قفك الدينار يدرهم يمتاع وحبا أنا هيسن مرقاب النبي يقول قفك عيد واكي وبنك قيامه الله يمن دونا صلاة يصون يزكي يحجب الله يمن دونا لكن دad fara badan ba halka hor joogsan doona dadkaas isaga wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkan waa idilay
mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygii buu iga dhacay mid wuxuu iga leeyahay dhiig buu iga daadiyay markaasaa la odhanayaa waxa li wuxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaka siiyo janno ku geliya markaabaa la odhanayaa weliba dad kala hadhay oo addoonka maaragtaane ku sheeganaya xaq markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyaku ay soo shaqaysteen ka soo qaado isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura walciyaadu billaah muflis qofka caydhu waa kaas khayrkuu soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aado jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa intoo madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegin wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba toobadda inoo furan waana ilaahay u soo noqonnaa daaruddunyaa joognaa maanta fursad baan haysanaa innagu dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado wallah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yahaabu alkhalqu minka وبقدر حبك لله عز وجل يحبك الخلق هاد بينت هاد إلهي أدقو أتكعب صوتد أيا مخلوق أدق كاهي بسنيان هاد بينت هاد أدقو إلهي أتجعلاتد أيا مخلوق نكو جعلانيان هاد بينت هاد إلهي كعب صوتد كن لي كما أريد أكون لك كما تريد حديث القدس إلهي بالله سدان ربانيك إيال ساد ربتنا أنا كوسي لي سدان ربنا ما أنت إنك تذكر دن محير ربان عريدي إنك بحام بين ربان فقر إنك بحام بين ربان ذل إنك بحام بين ربان مصائب إنك دح بحام بين ربان ضيق الصدر إنك بحام بين ربان وحالي وحاد كقبح لهيد عريرك الدنيا عريرك آخرة ومحي حرق إلهي قبصه واتي صحابي الربعي بن عامر وأشياء مارك تاني مدحي وين الرفرس رستم الله ابتعثنا إليكم بكيري رستم قائد قوات الجيش بوها ربعي بن عامر بأوي مدول الله صادروا للأرض لصو هذا هذا دجال ربنا ديار بنونا هاي هذا صلح ربنا ديار بنونا هاي ربعي بن عامر مركوي مدي وعوري أنكو سداد نوم لين إنسان منهن وعانا دد إلى هاي الدنيا وصوا صاري بنا هاي يعني صوا صاري لا هي لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأذيان إلى عل الإسلام بكويدي عجيب وحنا الدوية أنك اسكمنوا إيمانه وما الله صو صاري بأنهاي والنبي جدي بلا الله صو صاري عليه الصلاة والسلام سيد النبي محمد عالم قال لو صو صاري إنه رسالة دو قارسيو أيا أنك هدانا يا أصحاب تيسي إلهي بأن صو صاري بكويدي لنخرج من شاء سي أن وصارنا كيدونا عبادة أي عبودة يا نضومها السدودة ونصارنا ما ركتنا عبادة إله واحد كا وأري كمان مسلمين تو أي فهم لايهين ومن ضيق الدنيا عريرك الدنيا ده إنا كسرنا ضدك على نوك ينبود عنك ونصارنا إلى ساعتها نولش الدنيا ده بلع عجي بلع كيكا ورجالده عريري بيكون نوشة عريري بيكون جيران مسلم كمركو دين تدبو قاتنا سعة يكجرا سعة في الرزق وسعة في المال بكجرا ومكر سعة كجرا سعة ومكر عريري مقلايو نلش وح عريري قلنا ومحي ومعصية نلش وح سعة قلنا وطاعة إلهي ساسو كوري صحابي قاس
cidhiidhiga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku oo nii saara nolosha adduunyada balladhkeel iyo waasicnimadeeda wa min jawri aladyaan adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay buu yidhi annaku oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawri aladyaan diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga saarno niga dhex saarno oon u saarno dadka maaragtay diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka rustum baa yidhi aduma amiirkii ciidankaa tahay may anu mid jamaacadda muslimiinta ka mida un baan ahay buu yidhi markaasuu yidhi waan soo tashan doonaa iyo iska soco u socday nin buu u yeedhay markaa rustum wuxuu ku yidhi 3 maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan ood la cuntid ood la seexatid ood eegtid deedna marka aad ii soo noqotood iga warkeentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninkaa la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen 3 maalmood ninkaa jaasuuska ahaa markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii markaasuu yidhi maa waraa'aka ragga aad u tagteen kuu diray bal ka warran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun binnahaari wa ruhbaanun billeyl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubbaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka innagu khamriga aan cabbaynana iyagu khamriga ma cabbaan halka innagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka innagu aan isdulmaynana iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka innagu aan kala sarraynana iyagu kala sarrayn male kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanidin meel keliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan hadday qaadaanna ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabbaan sida nolosha adduunyada innaku aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaanba iyaku ay jecel yihiin buu yidhi عجيب لئن كنت صدقتني ليملكن ما تحت قدمي هاتي بود هدي تهي كرون شيغايا صفاتك ادي شيغيسد اي مسلمين اد كو شيغيسد هدي مسلمين صفاتك اي ليهين كرسيغا يا خزائنت ذهبك هوستيدا تالا مالين اي قبسدان برغاس way qabsan doonaan buu ku yidhi nolosha adduunyada raaxada adduunyada عزك الدنيا شرفت الدنيا هرمرك الدنيا خيرك الدنيا يا الله ولا ليال إيدتكم أنت أي رادين يا إلهي ملك لما قلن إلهي وحوق لي إن أمد إلهي أوصل نقطة بس إن إلهي الله صار نقطة أتوبوا إلى الله جميعا حكوا حقا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فلا أحبا دون إنسان ها صار نقطة هداد مسلمين هداد مؤمنين الليبان دون إنسان صار نقطة بيلاهين ليها جماعا ماها كلمة جمع كو صار نقطة أمدها صار نقطة توبت كانت تفلحون فلاح إلهي با فلاح شاقي والإسلام لماذا إلهي با كل شاقين لقول ليبان أيو حي على الصلاة حي على الفلاح بمؤذن كلية صلاة حقيقة أو كالي الليبان حقيقة أو كالية صلاة والليبان صلاة ولا تكذا لقول ليبان يا مهرد هذا وصلاة كوكو دافت لقوم الليبان أيو أمر كإلهي والله قاتل لقول ليبان قد أفلح هي الليبان دتك إيمان كلا الليبان يا صلاة دي بقول لي والليبان تأو كالي ليبان با إلهي شاقي إلهي با الليبان شاقي مركا الليبان تو دين تيكو جرتا دين تاسنا الحمد لله إنك إلهي دين تاو نسيه ونقول لي والله دادك ودنك كن نول بقولال كن أو جرب على الربا إلهي نكون شكرنا دل دين تودو مديسان تهي عقيدة تودو مديسان تهي مذهب كوغو مديسان يهي luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhiga maanta innaka waad arkaysaan caalamka maanta waxa ka socda
nicmada ilaahayna siiyey inaan ilaalshanaa naga doonaya oon hareeraha ka wada joogno oo caamadeena iyo culamadeena tujaarteena fuqaradeena odayadeena dhallinyaradeenna dowladdeena shacabkeenna waxaan ku faanaynaa waa diin waxaa la rabaa inaan diinteenna ilaalshanaa naga rabaa diintaan saan ku ilaalinaynaa markaas waa inay qalbigeena ku weynaataa diintu kow marka labaadna nolosheena diintu waa inay ka muuqataa oo mujtamaceenna waa inay diintu ka muuqataa dhallinyaradeenna waa inay diintu ka muuqataa wiilasheenna diini waa inay ka muuqataa gabdhaheenna waa inay diini ka muuqataa tijaaradeenna diini waa inay ka muuqataa xukuumadeenna diini waa inay ka muuqataa mujtamac diiniya loo baahan yahay ummaddu inay isku bedisho laana zamankan maanta aan gallay waa zamankii diinta qof diin haysta unbaa badbaadiyo ogow qof diin haysta unbaa la jecel yahay zamankan waa zamankii diinta weeyaan nabigeennaa sii sheegay sal allahu alayh wasalam almutamasiku bidiinihi kalqaabid cala aljamra waa zaman ayaa imanaya buu nebigu yidhi sunnadayda ninka yidhahda waan qabsanayaa uu la mid yahay nin dhamac haysta ha sii dayna xajiso waayo fasaadkaa badanaya sharkaa badanaya haddana sunnaha noolaanaya waa ka nebigu sheegaya ka sunnaha qabsada zamankaas waxa uu la mid yahay nin dhamaxaya buu nebigu yidhi dhamac ma hayn karaysid laakiin xajiso lilcaamili fiihinna ajru 50 rajulan ninka diinta sunnada markaa qabsada 50 nin ajarkood buu nebigu yidhi ayuu qaadanayaa saxaabi baa sare kacoo yidhi man 50 annaka mise waa 50 iyaka ah maya waa 50 ininkaa buu rasuulku ku yidhi 50 ininka fii sunan tirmidi 50 asxaabtii nebi maxamed ajarkoodii buu qaadan maanta ninka zamanka diinta qabsada فنتمسك دينتنا نقبسنا إن شاء الله هذا دلنيردنا علماءنا عامدنا جزاكم الله خير الله ينجى جزاء السيو سادو سوق بشان كلن كعاوة علماء أي نقول مرتقى علينا أنكم أرضي بنا علماء منهن ساجد كان مركز العلمي ummad oo dhan baa ka faa'iideysata cilmiga halka culimadu ay ka bixiyaan runtii meel kasto ay joogaan dadka af Soomaaliga ku hadla masaa'isha diiniga sheekheena jazaahullahu khayr halka ka bixinayo caalamka oo dhan baa ka faa'iideysta maanta marka anagu inaan hortooda ku hadalno ma ahayn laakiin haddana waa talab waa nasiixa weeyaan anagu caamadan wacdinaa inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxaa jirta jumladlayaal oo badaacada jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxaa jirta tafaariiqlayaal Soomaa bagaashlayaasha hadday labada ma kala maarmayaan ma kala maarmaan anagu marka tafaariiqlayaal baanahay xadiiska culimada aan ka maqalo ayaan maalin batuulo gaadhsiinaa caamadana waxaan leenahay caamoy culimada garab han siino seen garab culimada u siinayna wixii culimadeena aan ka maqalo ummadda han gaadhsiino طفيل بن عمرو الدوسي انتي نبينا او كم مغلي ايو يري تولكي انا غادسيني يدر بوكيدي تولكي اني امرؤ لمطاع في قومي نين وحانا ددكي سؤاد دغيستان نبي الله وشاعره ادر وادر النبي صلى الله عليه وسلم marka uu soo noqdo uu calaamad la igu gartay ilaahay weydii markaas uu nabigu ilaahay u bariyay wajigiisa intaas ay iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa marka waxay ii maleynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsiga dhacday u maleynayaan ilaahu nuurka halkan iga qaado jeedalka faraskayga la dhacay iftiinka igu bedel buu yiri والله بدلي وانا شلي اسلامي اي دعادي صلى اقبلها انك انا دعادنا كرم مات يا نشلي اسلام كرامات كدربه كظاهريسا يا نصردي انك دين الاسلام كدلننا ما امن سن دعادنا الا اقبلها مات او تغي وعلى انك تولكي كرامه ولا تغي كرامه لنبي كرامه ويديستي كرامدينا ولا سيي وعلى ان يربا كسو رميسي intooda badan way diideen marka uu ku soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu nabiga u yimid uu ku yiri reedows ilaahay iyo rasuulkiisa way caasiyeen habaar buu nabi allah ilaahay habaabiye marka uu nabigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nabigu inuu habaartamayo
waxay yidhahdeen reer dows way halaagsameen maanta markaa buu nebigu ilaahu reer dows soo hadee qalbigoogana adiga haya ilaahu diinta jeclaysii buu yidhi muu habaare mise u duceeyey ducadaa horraysa طفيل بن عمرو الدوسي بن نبي قوي ياري هذيك أنا وحى وكل طفيلو مركض مدة خير كادو شيء يسد أردي بربوكيدي أودتك الجعليسيها فرحين دتك نهجي دعوة أنا يسقي بالله الصحي وأنا أدعي النبي قو لبا ذا بقول النقضي لبا الصفة عجيبة دعوة قصة ليس طبيعة وناكسن يدعو لبا ذي بقول النقضي قوم كيسا عن بكرة أبيهم ريد دوس وأبا هريرة ودح سعده أي نبي كان يكو صوت إسلام مدينة المنورة كرامة دي كما إسلام وعكو إسلام أخلاق دي يدعى دي أنت نبي وكم غلينا ومدي سوق قرسي إنك أنا ما أنت رجعنا هالقا فدي قريها كنا قلنا إنه وعلى جاي أبا حديت تدوقف أقل كوسوين السحابين كي إن أما الله بقى يكتو كتو أما صدق كتو كتو تارك الصلاة قالوا نحن فدينا كورما بركة دعوة دا ماها مسؤولية علماء دا كل يسار همودنا أمدا إلهي بشغاد الدين تقول طلق علينا كشغيس ده إن شاء الله علمك علماء دا أنك قادنو جملة دا كقادنو إنه تفاريغ لنا قضايا وديار أمدا قارسيو يا ما شاء الله الله ينبرك جزاكم الله خير سلام نوصل دويسنا الله نوصل دويو كل جينا جنة الفردوس الله ينقو كل ميو وحا أنكو هذا الله ما ركتنا وحي أنا صيمنا إلهي بأن وفجيي وحي أنقفنا وقف حقيقة كيم دي إلهي بأن دمدا فويدي سننا وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badan oo walaalaheena ducadoon xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo qof walba ka kurbaysan kurbada Allah ka qaado muslimiintana meel kasta adduunka joogan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad